maalin ayaa waxaa dhacday in anigii iyo wiil aan saaxiib ahayn anagoo dhowr iyo 10 jira aan xaafadii aan deganin qadadii ka soo daanay 30 daqiiqo meelaha salaadii markii laga baxay kadib ayay cunugii ayaan maqlayn baan umaleyn 30 daqiiqo cunugii kale hooyadiis 30 daqiiqo way dhiman gaartay ama cunugaygii uu dhintay ama uu gaari dardaray ama meel lagala booday ama la afduubtay iyo waxyaalo aad u fara badan walaal aad u fara badan annagana waxaan nahay dhowr iyo 10 jir markaa masaajidka aaday meelaha iskaga mashquulay iska ciyaaraysay oo iska soo daaday meesha hooyada aynan ka walwalin ama aynan tabin wiilka kale hooyadiis way dhiman gaartay maanta waxaan u shakala duldhici rabaa waalidiinta ilmahooda aadka sida xad dhaafka u ilaaliya waalidiinta ilmahooda sida xad dhaafka u ilaaliya ayagu wanaag bay ka damacsan yihiin oo isleeyihiin cunuga dhibka jirkiisa ama dhilka noloshiisa ku imaan lahaa ka ilaali waalidiinta waxay u badan yihiin baryahan hadda markii la qiimeeyay ama waalidku sidaa ku soo koray oo asagoo sidii lagu soo barbariyay ama waalid markuu ku cusuban yahay oo kale ama waalidiinta baryahan qurbaha ka imaadana ayagana aad bay ilmaha u ilaaliyaan inkastoo ay fiican tahay laakiin xad dhaafku ma sii fiicno ama wuxuu noqon karaa waalid laga yaabo ilmaha inuu ka ilaalinayo iridiin yahay oo ilmaha bulshada iyo bay'adan ta'siirka xun ay ku yeelanaysa ka ilaalinaya way fiican tahay in laga ilaaliyo laakiin xad dhaafka ayaa muhiimadda aan ka hadlaynaa maanta marka saan sheegnay waalidiintan ayakoo wanaag u jeedo oo raba ilmaha xumaanta ku imaan lahayd noloshooda xumaanka xagga diintooda xumaanta waxaasoo dhan iyo khatarta ku imaan lahaa ka ilaalinaya haddana xadkii ayay ka gudbeen wax walbana haddii uu extreme noqdo uu xadka ka gudbo dhib bay noqonayaan waxay keenaysaa marka waalidiinta in ilmahooda sidii helicopterta ay u korreeyaabahayaan noloshooda ay ula socdaan hadduu joogo xaafadda iyo hadduu meel kale jiraba inay daqiiqad ooga warqabaan oo u xakameeyaan oo u ilaaliyaan ay noqonaysaa waalidiinta ayada ilmahooda waxay geliyeen xabsi dahab ah waxaan ka wadaa xabsi dahab noloshoodii way xakameeyeen way kontroolantay xumaan wixii dhib sharki bay ka ilaalinayaan mana ogo ilmaha inay xabsi ku geliyeen oo dareemayaan ayaga isaga waxay isleeyihiin dahab iyo wanaag baa u samaynaysaa laakiin inta shara ay u keeni zaa'idka markii waxaa xadka la dhaafiyo ayaa ka badan fanaaga ay keenayso ilmahan wuxuu noqonayaa markii la soo korinayaba in uu ka dhaadhaco in noloshiisi uun wixii uu rabay in la barto uunan baranin sababtoo noloshu cunugu markuu korayo wuxuu u baahan yahay wixii khatara kolba inuu fiiriyo uu barto uu dhaco uu kaco noloshii kolba uu intuu mistake ama khalad uu sameeyo khaladkii uu haddana uu lesson ama ka qaato taas ayuu u baahan yahay laakiin haddii wixii oo dhan laga xakameeyo noloshiisii dhan laga xakameeyo wuxuu noqonayaa qof ma aragtay ukun waxaa la dhihi jiray hanku weynaatay oo kale shar iyo dhibaatooyin iyo cawaaqib xun oo aad u fara badan ayay leedahay marka maxaa ka mid ah waxay noqonaysaa cunugaadi markuu weynaado inuu noqdo qof ku tiirsan waalidkii oo aan independence lahayn aan keligii taagnaan karin oo wax walbaba noloshiisa waalidkii uun ku tiirsan wuxuu noqonayaa canugan in bannaanka hadduu u baxo oo waalidkii markuu ka baxo oo waalidkii wax u qabanayay uun markaa waalidkii uun la joogin oo iskuulka oo kale ilmihii saad u haysay oo kale iskuul secondary aaday jaamacad buu aaday meesha waxay noqonaysaa cunugaasi inuunan lahayn coping skills uunan lahayn nolosha inuu la qabsan karin sababtoo maabada barinba nolosha si la isku maamulo si noloshiisa uu u maareeyo lama barin wax walba waalidka ayaa ka ilaalinaya u qabanaya taa waxay keenaysaa cunugii marka inuu noloshiisi maareyn waayo la qabsan waayo waa midda saddexaade carruurta ayada markay weynaadaan waxay noqonayaan laba mid in maadaama waalidkii mar walba uu kontroolahayay uu noqonayo inuu isdhiibo oo wax walba ka cabsado oo nolosha dhan ka cabsado oo noqdo nin fulay oo gabar fulay waxba dhaqaajinaynin oo meesha oo saa iskaga fuudada ama waxa dhici karta mar inuu intuu waalidkii waxan uu ku hayo noloshiisa dhibaysa ee aadna u xakameynaysa sida xabsiga uu ka farabaxsado oo ka cararo ama mar uu ka maqan yahay waalidkii inuu khatar galo noloshii dhan bas waalid ma arkayo markaa khatar weyn uu dhex galo maxaa ka mid ah khatarahaas maadaama khatarba uun baranin oo la kontroolahay waa carruurtan waxaa laga yaabaa marka inuu khataro waaweyn daroogooyin fuxshi xumaan zino noloshiisii oo khataro aad u fara badan oo noocaas oo kale riski ah
maadaama marka uu leeyahay noloshii maadaama la control jiray haddaan awood leeyahay awoodayda waa inaan tusaan marka khatar buu isgelinaya carruurta ayadaa mid afraad waxay noqon kartaa inaynan noloshooda self worth lahayn self esteem lahayn qofku waa inuu leeyahay inaad jirto ood qof sharaf leh oo quman oo taagan aad tahay ood isku kalsoon tahay qofku inuu lahaada la rabaa kalsooni isku qabo muxuu kalsooni ilmaha isku qabay sababtoo ah waxaaba dhacday inaad waxbaba u awood u siinin waxba independence noloshiisaba inuu keligii wax samaysanin marka qofku markuu intuu tallaabooyin qaado uu midna ku khasaaro midna ku faa'iido marka dambe dhiirigelin helaa uu ogaadaa inuu wax qaban karo laakiin qofka hadduu waxid marka dambe wuxuu noqonayaa qof noloshiisa baan ku kalsoonayn tashanaad cilladaha ilmaha aadka sida xad dhaafka markii loo ilaaliyo keenaysa waxaa waaye cunugaasi in uu noloshiisa anxiety murugo iyo walwal fara badan ku jira sababta maxaa keenaysa waalidka ilmaha aadka u ilaaliya sidiisaba waalid walwal badan waaye wax walba ka cabsanayo wax walba ama saan noqda ama cunugtisaan samaysa ama zaa'id ama uu gaari ku dhacaa ama uu fuxshi sameeyaa ama kan gabartii wax noqotaa waxaana aad u fara badan oo zaa'id oo aad walwal badan buu leeyahay walwal aad u fara badan waaye oo yani mugdi u istusahaya aan badankood waxba ka jirin taa waxay keenaysaa maadaama waqti dheer cunugu lagu soo koriyey walwal fara badan oo waalidkii uu qabay asagana walwalkii inuu ka dhaadhacdo oo uu noqdo cunug murugii walwal leh oo wax walba ka walwala midda lixaad ayadana maaragtay cawaaqibta waxaa ka mid a cunugii mar walba inuu ceeb dareemayo uu dareemayo wax walba uu qaado uunan ka cabsanayo cabsi iyo ceeb uu ka dareemayo sabab wax walba basoo wax u bartay malaha wax walbana waa maxaa saa u samaynaya la dhahay waxaa la baray noloshiisa uu waalidku baray adduunkan dhanba dadka asaga hooyadii iyo asaga ma ogiye inta ka baxsan inay meel khatar tahay oo bahalle iyo balaayo iyo wax ay joogaana waa midda labaad asaga wuxuu iska dhaadhiciyay markaa haddiiba saata waalidkiiba uu saa sheegayo inuun asagu waxba ka qaban karin marka wax walba uu ka cabsanay midda toddobaad oo dhibo ka imaada waxaa ka mid a cunugan inuu markuu weynaado qof weyn noqdo inuu isku dayo inuu dadka kaloon iska gado dadka kale u raaligeliyo wax walbuu samaynayaba kalsoonidii maadaama ayn jirin oo waalidkiina waxa uu baray ay noqonayso inuu opinionka dadka weydiiyo waxaanaan samayn rabaa maxaad saad u aragtaa asaga intuu go'aan qaato xataa hadduu waxaan saxsan yahay kuma dhaqaaqi karo hadduu khaldan yahayna hadday dadku dhaan way saxsan tahay wuu samayn asagoo laga yaabo noloshiisa inaan ku faraxsanayn waxa uu samaynayo sababtoo ah waa wax la baray oo dadka un in la raaligeliyo maadaama waalidkiis uu baray canugan waxa uu samaynaya si uu ilaalinaya keliya waxa uu samaynaya ay noqotay jacaylka waalidkii uu tusay in la ciqaabiyo in la farxgeliyaba inuu waalidkii waxa uu rabo ay sameeyo ay tahay taasaa marka ku keentay waxaa kaloo ilmahan ayakana ay baranayaan maadaama waalidkii uu ahaa qof perfectionist ah oo isku daya dhammaystiran inuu raadiyo adduunkana ilaahay keliya dhammaystiran bini aadam ma dhammaystiran marka cunugii waxaa dhacaysa ma dhammaystirno noloshiisii dhammaystiranka iyo waxaasaa la baray waxay keenaysa marka relationship markuu yeesho islaam buu guursaday nin bay guursatay dad buu la shaqeeya wixii oo dhan shaqaaluu leeyahay wax oon dadka aynan kari karin iyo culaysyo iyo sharciyo iyo xakamayn iyo rules inuu soo dejiyo aaman qof ka soo bixi karaba jirin taas waa dadka aad aragtaan badanaa markaa hata ay guursadaan dadka ay ka cararaan oo maaragtay xaaskiisa ama ninkiisa wixii la qabsan karin waa dad noocaas oo kale rules aad u adag la soo baray waay midda ugu dambaysa ee cawaaqibta ka imaata ilmaha maaragtay aadka loo ilaaliyo waxaa waaye in ilmahaasi daacadnimo uunan marmar yeelanin dhab ahaan noloshiisa originality malaha qofku markuu kalsoonida iyo interdependence-ka uu qof ka madax bannaan dadka kale yahay wuxuu yeeshaa markii kale qof original inuu noqdo oo maskaxdiisa ku fikiri kara wixiisa ku fikiri kara cunugan wuxuu isku dayay maadaama uun originality lahayn dadkana inuu raaligeliyo isku dayayo wuxuu isku dayay markaa ma ogaan kara mar walba ama inuu been ka sheego isku day ama inuu dadka raaligeliyo isku sheega noloshiisa waxa uu sheegaya say u muuqato wax dhab aba ma aha waa wax filan ahaan uu ka dhigaya taa waxay noqonaysaa marka qof marka dambe markay bartaan ay ka cararaan qof aan laisku halayn karin oo noloshiisa dhabtaa baan la ogaan karin oo mar walba inuu filin jilahayo oon loo malayni iyo filin hinti la fiirsanaya marka dhibkaasoo dhan isku soo duuduuba oo dhibkaasoo dhan haddaad waalid tahay oo ilmahan
aad tahay dadka aadka ilmaha u xakameeyo xag diineed ka xakamayn ha noqoto xag kale ha noqoto iyo nolosha kale noloshu al-umuura awsatuhaa meel dhaxaadka waaye waxyaalo badan qofku wuxuu u baahan yahay in xoogaa dhibka uu arko lagu sii daayo bay'ada oo uu arko laakiin ilaa xad waxyaalaha korkaana lagala socdo zaa'idna aan loo xakamaynin taa haddaad zaa'id u xakamaysa cawaaqib badan baa ka imaanaysa haddii aad qof weyn tahay oo waxaan lagu soo ama dhallinyaro waalidkii sidan oo kale uu ka soo dhigo nolosha inuu ka bedelay oo dhibkan hadda aan ka sheekeeyey qaarkood aad isku aragtana nolosha waxbaad ka bedeli kartaa ilaa xad haddaad adiga aad dadaasho ee effectiga ama raadkan ay kugu yeelatay waxbaad aad ka qaban kartaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu